بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أرنتا تنازل كاسي ويديسي أرنتا تنازل كوحيكو إمادي هرانتي أديغا مدة 3 بلود لغا جوغا باق نقديدا سعودي وقال وحقرد إيو علماء أي أرنتان تلك الدح سعودي iyo shacabka in iska qabsigan siyaasadeed xal loo helo oo iska qabsigana soo dhamaado soo afjarma marka ugu dambeyntii annako og in shacabkeena sharafta leh ceeldaas ayagoo abaar ka soo baxeen u nuglaadeen dhaqaale xumada wadanka ka jirta barakacyaal ay ku noqdeen countiyar kala oo haddana loolanka adkaay laga soo baxay oo liis calool cunay waxaan doorbidnay arrintan in nabad laga keeno baaqa ugu dambeyn waxaas ka soo baxay suldaankeena sharafta leh iyo uqaashiisa oo codsaday in arrintan iska qabsiga siyaasadeed oo daba dheeraaday la soo afjara anigoo siyaasiga ahaana waa ka dhaga adkaan waaye inkastoon ogahay loolankii adkaa oo la soo galay shacabkii taageerana dhibaato badan ay ka soo gaartay sababaha aan u aqbalay baaqaas nabadeed ee tanaasulkana ay tahay inay shacabka loo turo shacabkii haddaa iska qabsigana dheeraaday waxaa ku dhacday inay adeega asaasiga hataa ay waayaan maadaama meesha iska qabsi siyaasadeed ay ka jirta ayagana dhibaatooyin fara badan ay ku dhacday tacliinta caafimaadka iyo adeega asaasigana ay cariiri ka gashay arrintan iska qabsigan daba dheeraatina ay u horseedi karta inayba dadkii ay aad iskugu xumaadaan oo hataa colaad horseeda tii aan doorbidnay inaan tanaasul aan ka xigna madax meel ka sarreysoo la salax malaha suldaankeeni sharafta lahaay haddaad imaaday Nairobi asigii odayaashiisa baaqi waan ku aqbalnay inaan tanaasulo on arrintan maxkamadda aan ka soo reebo maadaama aad soo jeedinaysid inta badan sidaan ku sheegay shacabka kusoo doortay waxay ku jiraan inta badan marka heshiiska la gaaro iyadoo danta heshiiska ay ku jirto shacabka in axmed boole caqaadaya lacagta iska qabsi daba dheeraaday shacabka dan mu aha waan ogahay qalbigooda waa dheeraaday arrintan tanaasulkana qaarkood way ku adkaatay inay aqbalaan laakiin waxaan leenahay shacabkeena sharafta badan arrintan tanaasulka waa indan waan ognahay qalbigiina waa dheeraaday waa lees calool cunay dadka walaalo ah markii arrinta heerkan gaartana calool cunkan faraha badan waxaa dhaliyaa inay xawaalo badiyaan ay xoolo beelaan annagana ma doonayni arrin siyaasadeed inay shacabka ay isku xumaadaan oo heer colaadeetata ay gaarta markaan baaqaan u diraya shacabkeena sharafta badan waxaa waaye inay nala gartaan inay dartood aan u tanaasulnay oo iska qabsiga siyaasadeed aan u dhamayn